madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Britain Gavin Williamson iyo wafdi ballaadhan uu horkacayo. kulankan oo ah mid saacado qaatay ayaa la sheegay in laga wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya Britain iyo Somaliland. waxaana lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland. waa booqashadii ugu horreeyay ee wasiirka gaashaandhigga ee ka socda dalka Britain uu ku yimaado Somaliland. madaxweynaha Somaliland waxaa dhankiisa kulankan ku helinayay wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga gaashaandhigga safiirka Somaliland oo fadhiya dalka Ingiriiska. wasiirka gaashaandhigga dalka Britain waxaa kaloo booqasho ku tigay koorintii aanu la kulmin madaxweyne Biixi taliska guud ee ciidamada militariga Somaliland, halkaasoo kula kulmay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada militariga Somaliland iyo saraakiil kale. dowladda boqortooyada Ingiriisku waxay Somaliland ka caawisaa tababarada ciidamada iyo horumarinta mashaariicda dhinaca bini'aadanimo.